السلام عليكم تيم بلباج اوفيشال بليز هدي اكو عصبتاي سبسكرايب لايك شير كومنتس كمبلالك فرو بليز and please again thank you for you watching to me aad iyo aad u mahadsan tahay sida ay fiirsanayso marka koobaad waxaan rabaa inaan ku dhaho kan idaawo doono ku idaawo doono galab wanaagsan subax wanaagsan maalin wanaagsan see ku tahay wanaagsan maanta waxaan rabaa ina nila socodsiiyo new programkan maxaa waaye maanta surprise ayaa la kulmay surprise kaas maxaa waaye wax badan ay dhagahii ku dhaceen dhagax tuur maanta waxaa jooga taalada dhagax tuur bal ila daawo dhagax tuur waa kuma taaladiisana se u taalaa ila daawo si fiican master dhagax tuur waa kaas dhagaxiisa ayuu wataa maaha nin cadaan waa nin Soomaaliya madow ah waa cadaha u maleeyahay hadalkaasi boontikas hoosta ka xariiq dhagax tuur waa kaas taaladii waa tan jawharadan way quruxda badan oo saan u taal waa meel nidaamsan qarash la geliyay lacag la iskaga baahna marka isku soo noqod wanaagsan marka aniga markaan sabraaska la kulmo waxa waay wasaaradda waxbarashada ayaa waxaan u doonahayay shahaado aniga waxa kamid ah ardayda sanadan 2019 ka qalin jabido oo godax bari ku cilcilaay imtixaankii marka shahaadada ayaa soo doontay shahaadada marka soo doontay dhagax tuur waa maqli jiray laakiin meel uu ku yaalmaan arag marka shahaadada marka soo doontay waxaan arkay nin madow oo dhagax wato marka waxa uu soo dhacay dhagax tuur nin cad hadoo ahaa lahaa ma ana fahmin qodobkaas hoosta ka xariiqa marka waxaan leeyahay muwaadinimada waa shay muhiim ah qof kasto muwaadin ah oo inuu wax dareema muwaadin baa oo lureysan laabteeda dhagax tuur baa ehelnaho asal ahaanteeda libaaxyada Afrika inaan nahay cadmiya ka saar okay inta saa uu gudbo waxaan leeyahay marka koowaad waa in ay la dhahdaan qof kasta videoga fiirsaayo Soomaaliya ha noolaato ha israacdo ha midoodo ilaahay ducadaas naga aqbalo barakallahu fiik marka waxaan leeyahay team bilbaash official ku soo dhawaada barnaamijkan please hadii aad ku cusub tahay subscribe like share comment horta meeshan nidaam ayaa ka jiro nidaamkaas waxa waaye bacdul casr ayaa la furaa meeshan markii la furana wax lacag cid laga qaado ma laha qof la xujeeyo qof gaar oo soo gala ma leh madax iyo arday iyo ciyaalka xaafadda iyo ciyaalsiyaha iyo duqooshaha iyo maamooyinka wax alla qofkii muwaadin Soomaaliyeed meesha waa imaan kara xor waaye hadalkaasi ana ku cadeeyaa maanta xor waaye aniga maanta marka uu imaado waxaan dhahay ninkan dhagax tuur Soomaanaha ina galaara meeshan video ku duubto waxaa li dhahay bacdul casr ayaa la furaa marka adigoo raal ah naga laa waxaan dhahay aniga wax jaan samaayo waxaan soo doontay shahaadada dawladda federaalka Soomaaliya marka waxaan dhahay aniga waxaan soo doontay shahaadada dawladda federaalka Soomaaliya sa u jeedin waa aragtina u maleeyahay shahaadada dawladda federaalka Soomaaliya dadka badan waa fahmay sawirkay waa kaasa shahaadada dawladda federaalka Soomaaliya marka waxaan dhahay marka shahaadada soo doontay in lii furaa rabaa marka waxaa la dhahnayho anaga waxaan lagu amro qof kasto muwaadin oo rabo meesha inuu video ku galo muwaadinimadiisa ku cadeysto sawiro ku galo ku dago waa loo ogol yahay marka ku soo dhawaaba la yiri inkastoo nagu adagtaa saacada inaan furno marka waxa dhahay please adoo ii dul qaadaha adeerkii waa adoo dul qaadaha adeernimadaada iyo Soomaalinimadaada iigu fur waa liigu fursad ku soo galay videoga nila wadaagaya marka waxa leeyahay youtuberleyda waa inay yimaadaan dhagax tuur sayidka waa inay yimaadaan muwaadinimada dadku soo tusan waayo indhaha bulshada daawata YouTube-ka indhay u yihiin marka waa inay soo bandhigaan muwaadinimada maahan oo kaliya inay markasta video ka soo qaadaan beerta banaadir beerta nabadda meelaha qurqurxoon jasiira liida oo kaliya maahan waa inay dhagax tuurna soo bandhigaan aniga waa isku dayay in aan raadiyo taariikhda dhagax tuur marka dadka meesha jooga hal odayo ahaa asagiina xilli waxa lagu jira oo bacda duhur ah marka uu isaamix weeyay inaa wareysi oo isiyo oo iga sheekeeyo taariikhda dhagax tuur marka aniga dhagax tuur wax ka garanaayo taariikhdiisa laakiin dhagax tuur inay tahay halgan ayaan xasuustaa ama lii sheegay oo aan sheeko ku maqlay marka dhagax tuurna hadda cadeyntiisa waa beestaaba
inuu nin madow yahay dhagaxiina wata intaas ay ugu badan xarafkaas hoosta ka xariiq soomaalinimada midabkaaga ina aqoonsato waaye iyo kalarka leedahay maahan ina ka faanto waan ku faanaa soomaalinimada oo ku faanaa muwaadinimada oo kaliya maahan ina dawladda federaalka Soomaaliya aad taageersantaa mise dawladnimo waxaas maahan muwaadinimada waxa waaye af Soomaaliga maadaama Soomaali tahay muwaadin Soomaaliyeed ayaan tahay marka waxaan leeyahay aniga waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo muwaadin al-abwaan Cabdifataax al-muwaadin aan leedahay muwaadinimadana banaanka taala qofka waa in oo markasta oo xasuusnaado ama ku faano video hadii aad ka soo duubto dhagaxtu sayidka waxay ku tahay waa keed email ku yaal keed mail ku yaal waayo oo adiga isticmaali doonto sanado kadib waayo taariikh meel ku taala waayo 29ka bisha October oo ah bisha 10aad 2019 فيديو اسكو دوباyo 7 saac qadar 40 daqiiqo ah waan ku faraxsanahay video iska duubo dhagax tuur videogaasna aan dhigo YouTube-kayga oo ah Bilbaash Official waa kayd meel iyaal waan ku faani doonaa waa la soo bixi doonaa dad iskaga cili doonaa ina ahay muwaadin Soomaaliyeed marka qof waliba oo rabo muwaadinimada Soomaaliya waa wax adig meel ku yaal waa taariikhdaada waa wax dad iskaga cili doonto waa wax dagaal u gali doonto marka jira Soomaaliya ah muwaadin maxaa ku tahay dhagax tuur markii la sameeyay hadii ay maado video ku gasho misna YouTube-ka aad dhigto misna meel adigaar ku yaal bulshada la wadaagto muwaadinimada banaanka taala anaa ku dhaha muwaadinimada marka maanta waan ku faraxsanahay inaan muwaadinimadeyda aan kaalin mug leh ka qaatay waana ku faraxsanahay dadkana waxa leeyahay intii maqashay dhagax tuur anoo kala ah maqalay ku jiray dhagax tuur ay ma kartaa cidka ma xigto bacdul casr ay ma kartaa nidaam adoo diyaarsan sawiradaada fiidiyowadaada waxaad dhan ku habeeysan karo cidna ka ma xigto cidna kuma ogolo wax gaar loo ogoliyana ma jirto waa ku caway kartaa ku raaxaysan kartaa ilaa habeenkii fiidiyowo kala kacsan oo muwaadinimada muujinayo gabayo wax badan inta ku soo diyaari doona ila soco hayoosan ka tagin baabuurkan oo wado awaan cartan oo baabuurkan oo laga heli karo Bilbaash Official marka waxaan la yahay asxaabta sharafta leh xalad degeeyo kafaaxa xaalada dadku waxay dhahaan kalsoonida badan waa lagu kufaay kafaaxa badan kalsoonida ay noqon aan laga wadaa full marka kalsoonida badan waa lagu kufaay kafaaxa badan qof kasta ka ku kalsoonaan iska jir marka waxaan la yahay asxaabta sharafta leh ku soo dhawaada Bilbaash Official subscribe like share gambalelka furo markasta video soo duub waxaan dhahaa subscribe like share gambalelka furo macnaheedana waxa arka maanta marka ogaada videoga inuu maraa 800 oo subscribe ah 1 month waxa raacay kaliya waa 3 maalin waa nigu faanaa waa itixgelisaan waa taageertiin taageeradiinana waa taageero banaanka taa wiilka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed maamada Soomaaliyeed aabaha Soomaaliyeed macalinka Soomaaliyeed sheekha Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed all of them of Allah oo Soomaali ah oo idaawanay waxa leeyahay waa ku maasantaa daawashadaada iyo ina wax ka ogaato dhagax tuur intay ku taala dhagax tuur waxay ku taalaa wixii ka soo horjeedaa masaajidka weyn ee isbeesiga qof kasta garanaya umla masaajidkaas waa masaajid weyn waxaan magiciisa oo taana waxa waaye isbeesiga asagana maanta salaada ku tukaday salaada duhur marka ina imaato waa meeshan video kal ilaaba ku duubato keedkaada meel dhigato ku faanto dad baan iskaga celido muwaadinimadaada iyo waa maxay markii lagu yiraahdo waa kuma markii lagu yiraahdo dhagax tuur videogan ina u soo bandhigto waa dhagax tuur waa kaas dhagax tuur waa aragtaan oo maleeha nala socda marka hadeertaan waa bixi rabaa video waqti ma haayo waan jeclaan lahaa meesha xitaa dil iska seexadii liiraan iska seexdo waayo qayb kamid ah muwaadinimada waxa waaye qayb kamid ah muwaadinimada ina muwaadin tahay qayb kamid ah waaye saan sheegna waxa soo doonta waxa waaye shahaadadeeda waa tan Cabdifataax Cartan Faarax waa aragtaan oo maleeha ina Xaliima Cabdullaahi cilmi samantar ku dhashay Muqdisho 1980 reer Muqdisho ina ahna banaanka taala oo maleeha ku dhashay Muqdisho 1980 ku dhashay Muqdisho gaar ahaan suuqa xoolaha qof kasta garanayo isbitaalka SOS